سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوضيال ميل ولباد جوجتان با قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكمذا إذا مدى دلك السودان أيان لوغل لا يحي قبيهان با يقول قول وين كسوه يدقال كدحمر إذا مدى دلك إثيوبيا ciidamada dalka Suudaan ayaa guud ahaan qabsaday gobolkii lagu muransanaa deegaano kale ku teedsanna ayadoo militariga dalka Itoobiya ay ku dhiiran waayeen bal inay lugta galiyaan goobaha ay colaadu ka taagan tahay gabi ahaanna dhulkaasi ay gacanta ku dhigeen militariga dalka Suudaan ayaa awoodii ugu badnayd u adeegsatay gobolkaasi ciidan ayadoo militariga dalka Suudaan وهبك تانجيدا نوعيدا ugu cusla uu gobolkaasi keenay dawladda Itoobiya ay ku dhiiran weyday gabi ahaanba inay lugta gelisay gobolkaasi ciidanka dalka Itoobiya gabi ahaanba dhulkaasi ay dib uga soo rogmadeen gobolkaasi ayaa gacanta u galay dawladda Suudaan iyadoo moodid hadda dawladda Itoobiya jirta inay gabi ahaanba u barbadhigi karin dalka Suudaan halkaasi ay guulo waaweyn hordhaca ka gaadhay iyadoo sidoo kale la sheegay ciidamada Suudaan inay saacideynayaan ciidamada dalal kale oo garab siinaya haseeshee aan la garanay haybtooda dalka ay ka soo jidaan gobolka Oromiya waxa ka soconaya dagaal aad u qarar u dhaxeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo jamhadda Ola ee ka dhaqdhaqaaqda deegaanka Oromiya jamhadda Ola ayaa guulo waaweyn ka sheeganaysa dagaal saacadihii la soo dhaafay ka dhacay bartamaha iyo waqooyiga gobolka Oromiya iyadoo jamhaddu sidoo kale soo bandhigtay ciidamo aad u tiro badan oo ku sheegtay inay yihiin ciidamada guulwadayaasha Oromiya jamhadda ayaa maalinka ka dambaysa kumanaan kun oo ciidan ay ku soo biirayaan ama dhalinyaro mutadawiciin oo Oromiya u dhashay si ay ugu dagaalamaan baa la yiri difaacidda dalkooda xoogagga Tigrayga ayaa sidoo kale soo bandhigay ciidamo aad u tababaran oo ku sheegeen inay yihiin ciidamada difaaca Tigrayga oo tababar u soo dhamaaday magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ayaa abaabulaya kumanaan kun oo ciidan ah oo ku sheegeen inay yihiin ciidamada weerarka kama dambaysta qaadi doona ee Dr. Abiy Ahmed gabi ahaanba karkaarka weydaarin doona xoogagga TPLF ayaa abaabulkii ugu dambeeyay wada ee ka dhanka dawladda Itoobiya ayadoo xoogagga Tigrayga laga sugayo in ay ku dhawaaqaan guddiga matalaadda wada hadalka dawladda Itoobiya iyo xoogagga TPLF ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre ayaa maanta magacaabay ugu yaraan 7 qof oo ka shaqeynaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimayaasha waxyaha noocyada kala duwan la taliyaasha dhanka siyaasadda iyo la taliyaal tiro badan oo laga magacaabay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayay noqonaysaa magacaabistii ugu horeeyay oo si public ah u shaaciyo oo ka mid noqonaya goli dawladdiisa ayadoo ra'iisul wasaaraha sidoo kale ay miiska u saaran yihiin golo wasiiro aad u tiro badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale dalka dibadiisa safar ugu ambabaxay la sheegay inay diblomaasiyadda ka mid tahay dalweynaha Soomaaliyana uu casuumaad ka helay dalal khaliijka ku yaala madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaysaa safartiisii labaad ayadoo dalweynaha Soomaaliya uu si weyn dardar u socda baa la yiri ammaanka iyo midnimada Soomaalida qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha 7 2022 haddaynu u guda galo wararkeeni oo faahfaahsan ciidamada Suudaan ayaa aad iskugu sii ballaarinaya dhul aad u ballaaran oo ka tirsan dalweynaha Itoobiya ciidamada Suudaan ayaa 3 maalin ka hor weerar xooggan ku soo qaaday dalweynaha Itoobiya ayadoo Suudaan u suurta gashay gabi ahaanba inay la wareegto dhul lagu sheegay ugu yaraan 700 oo kiiloomitir oo isku weera
militariga dalka Suudaan ayaa loo barbardhigi waayay iyadoo ciidamada Itoobiya waqtigan jira ayna awood u lahayn baa la yiraahdaa iska difaacaan dawladda Suudaan oo carcar dagaal ama dawladdiinaha oo sanadyadan badan aan dagaal ahliya galin ciidamada Suudaan ayaa u suurta gashay inay gebi ahaanba dhulkii lagu muransanaa ama dhulka ay muddada dheer dawladda Itoobiya ku naaloonaysay ama gacanta ay ku haysay inuu si fudud farahooda ugu galo Suudaan ayaa weerarkan u adeegsatay hubka noocyadii ugu dambeeyay taangiyada diyaaradaha xawliga u kaca ayadoo halkaasi ku qabsatay weerar ciriyo dhula dawladda Itoobiya ayaa isku dayday in badan inay gobolkaasi ka difaacdo ciidamada Suudaan halkaana u daabulaysa ciidamo aad u tiro badan hase yeeshee gebi ahaanba ciidamadaasi guuldarro weyn ayay la soo hoyeen baa la yiri ayadoo ciidamada Suudaan ay gobolka iyo deegaano ku hareeraysan gebi ahaanba gacanta ku dhigan Suudaan ayaa weeraradeeda ku salaysay in ay yihiin dhawaan markii saraakiil u dhashay dalka Suudaan ay maleeshiyada axmaaraha ku dileen xuduudda labada dal hase yeeshee Suudaan ayaa moodaa hadda gebi ahaanba inay u aragto inay tahay fursadda koobaad ay dhulkaasi ku qaadan karto ayadoo dalweynaha Itoobiya muddo dheer oo dagaal ka jira u dhaxeeya qoomiyadaha dalka Itoobiya gobolka Oromiya waxa ka soconaya dagaal aad u qarar u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo jamhadda Ola ee ka dhaqdhaqaaqda deegaanka Oromiya jamhadda Ola ayaa guulo waaweyn ka sheeganaysa dagaalka dhacay bartamaha iyo waqooyiga Oromiya jamhaddu waxay sheegtay inay duulaanka dawladda si weyn uga hortagtay kumanaan ciidan ahana ay naftooda u hurayaan difaacidda gobolka Oromiya gobolka Oromiya ay jamhadda Ola saldhigyo waaweyn oo military ku leedahay ayadoo gobolkaasi jamhaddu ay intiisa badan gacanta ku hayso waa sida laga soo xigtay warbaahinta taageerta jamhadda Ola xoogga TPLF ayaa soo bandhigay ciidamo aad u tiro badan oo ku sheegeen inay ciidamo ka qalin jabiyay xero tababar oo ku taala magaalada Makele ee caasimadda gobolka Tigrayga TPLF iyo dawladda Itoobiya ayaad moodaa mar kale inay colaadoodu cirkaas ku shareeri rabto iyagoo xoogga Tigraygu ay baryahan dambe wadeen abaabul ciidan ama tababar ciidan oo aad u tiro badan xoogga TPLF ayaa dhawaan shaaciyay inay xoreynayaan gobolka gacantooda ka maqan ay gacanta ku hayaan ciidamada axmaarada iyo militariga dalka Itoobiya ee bariga Tigrayga hase yeeshee ololaha ay hadda wadaan TPLF ayaa ka duwan ololihii hore ayadoo TPLF ay dhalinyarada gobolkaasi gebi ahaanba hubaynayso xaaladuna aad moodid inuu isbedel weyn ka socdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre ayaa maanta magacaabay xubnaha la taliyayaasha agaasimayaasha madaxtooyada iyo saraakiil aad u tiro badan ra'iisul wasaaraha ayaa noqonaysa markii ugu horeysay magacaabistiisa uu magacaabo shakhsiyaad aad u tiro badan oo ka mid noqon doona xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh